سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم النفس بتقوى الله تعالى. ولا الليال waxaynu ku jirnaa bishii Ramadaan fursad waxaynu helayno Ilaahayna soo gaarsiiyo subxaanahu wa ta'ala iyadoo dad badan oo walaalaheena aanay fursad iyo jaanis u helin umriga Ilaahay uu ku kordhiyo waa deeq uu ku siiyay oo aad kaga faa'iideysan karayso dhinaca wanaagsan iyo amalka fiican waayo qofku markuu dhinto waxba lagama qoro shar iyo khayr toona lama qoro kitaabkiisi uu xidhmay marka Ilaahay bay nagu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'ala waxaynu markaa isku baraarujinaynaa inaynaan ilaawin shaqadaynu qabanayno bishan dhexdeeda markuu qofku hawlgalaya hawshu waa inay u cayiman tahay si aanu u halaabin si aanu waqti uga lumin marka arrimaha aynu bishan dhexdeeda qabanayno ilaa 7 arrimood weeye insha Allah oo waaweyn oo aynu ku dadaalayna taw horeysa waxa weeye saynu afxiranahay Ilaahay daraadi subxaanahu wa ta'ala arkaanu islaamki mid kamida baynu gudanaynaa oo bisha Ramadaan oo la soomo soomka inaan la dhayalsanin lagu xadgudbin ciyaar looga tagin ee la ilaaliyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bushaaru inoo qadimay xadiis al-qudsi buu Ilaahay ka warinaya subxaanahu wa ta'ala Ilaahay baa wuxuu yiri qof kasto bani aadam amalku qabanayo aniga isaga iska leh kullu amal ibn aadam la amalka uu qabanayo isaga iska leh xasanaadka uu sameeyana Ilaahay 10 jeer buu u laabaya 700 jeer buu si laablaabaya xadiidkaasi waxa uu leeyahay illa siyaama fa innahu li wa ana ajzi bihi soomka aniga leh anana ka abal marinaya xadiidka in badan baa maqashin laakiin waxaynu ugu celinaynaa bushaaru inoo yahay waa ku farxayna wiina dhiri gelinaya dareenkeenu kor u soo qaadaya soomka aniga leh anana ka abaal marinaya waxay sheegaysaa amalada oo dhan Ilaahay daraadii baynu sameeynaaye kana waa amal khaas oo dheeraad leh oo sir gaar leh oo daacadnimadiisa iyo ikhlaaskiisa aad u sii badan oo nifaaq iyo istusnimada ka dheer wuxuu Ilaahay ku sababeeyay yatruku shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli qofkani uu go'aan wanaagsan yahay qofkani Ilaahay amarkiisu u heelan yahay naftiisii buu ka adkaaday wixii uu cunay iyo wuxuu cabayay hamadii uu gudan lahaa intaba Ilaahay daraadii buu daayay daacadnimadiisa iyo ikhlaaskiisa badan qofka Soomaali laba farxadood buu leeyahay marwa markuu afurayo ama galab walba ama ciida marna waa markuu Ilaahay sortaaga subxaanahu wa ta'ala ee uu arko waxa faraha badan ee miisaanka badan ee Ilaahay uu ku abaal mariyay ee dambi dhaaf iyo janno leh qofkan isaga ahi wanaaga uu ka leeyahay Ilaahay agtiisa sidoo Rabbi uga raali yahay afkiisa waa u gooyay isaga dadka hareera jooga haba dareemeen inuu ur iyo wax uga soo baxayaan gaajada badan daraadeed laakiin Ilaahay agtiisa aad buu udgooyay miskigana waa ka udgooyay bushaarooyinka soomka aynu soomayna aynu ka helayna waxa kamid ah taa nabigu alayhi salatu wasalaam xadiithi saxiixa man saama ramadaana iimaana wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofku hadduu bisha Ramadaan soomo isagoo Ilaahay abaal marin kaga doonaya wax kale aanu jeedin isagoo rumaysan wuxuu Ilaahay u ballan qaaday oo aan saruugsanayn dambigii hore laga dhaafaa dambiga hore la inaga dhaafayaana wax sahlan maaha waba intaynu wardayno way cid kale oo dambi dhaaftaa ma jiro waman yaghfiru dhunuba illa Allah Ilaahay mooyo cid kale oo dambiga dhaaftaa ma jirto waxa markaa halka aynu ka fahamnay shaqadeena koobaad kol hadii ay tahay waa inuu kala duwanaada maalinka Ramadaan iyo maalmihii kale aynu afuranay oo ixtiraam gaar ah bishan leedahay ilaashi gaar ah leedahay inuu kula jeclaadayno si aqbalkeedii iyo ijaabadeeda aynu ugu dhawaano
shaqooyinka inoo yaalla waxaa ka mid ah alqiyaam fi lleyl hadduu siyaamka ama soomku maalintii ahaa habeenkiina waa sara joog ilaahay daraaddii laysu taagayo waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay isu taago caabuda buu laha yidhi idinka oo ilaahay isu dhuldhigaya oo adeecaya haddii soomka aynu ka kasbannay ama ka helay dembi dhaaf waxa isagana aynu ku ladhaynaa oo inoo raacaya dembi dhaafkaynu ka helayna habeenkii habeen iyo maalinba labada fursadood baynu ka wada faa'idaysanaynaa man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi waa xadiid saxiix nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka bishaa habeenkii cibaadaysta taraawiixdii iyo salaatuleylkii iyo isu taagaan dembigii horaa laga dhaafaa haddii ramadaan wax kaaga soo harhadheen kaasaa isagana lagu dhaafaya ilaahayna wuu ammaanay dadka habeenkii isaga caabudo oo wuxuu sheegay addoomihiisa dhabtaa inay yihiin magaca buu bixiyey la ydhaha cibaaduraxmaan addoommaha raxmaanka macnaha raxmaddiisa helayaa wey وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما tilmaamaha ay leeyihiin addoomaha raxmaanku waxa ka mid ah kibir ma leh dhulka deganaansho ku dul maraan waa dad dulqaad badan oo kuwa liiteen lahayn cilmiga markay la hadlaanna way iska dhaafaan habeenkiina ilaahay bay isu taagaan oo ay is hortaagaan iyaga oo marna u sujuudsan marna taagan cibaadaysanaya xadiidkii saa'ib ibnu yaziid waxaa ku sugnaa dadkii naga horreeya saalixiintaa salafka la odhanayay habeenkii waxay ku cibaadaysanayeen ee akhriyayeen boqolaal aayadood oo suuradaha dhaadheer ah oo jusas dhowra noqon kara markay daalaanna waxay cuskan jireen usha iyo tukubaha ilaa waagu soo dhowaadana waa la wadi jiray habeenkii in loo soo jeedo cibaadada alle iyadoo ilaahay la hortaagan yahay subxaana wa tacaala oo qur-aankii maalintii la akhriyayay baa habeenkiina lagu cibaadaysanaya shaqooyinka inoo yaallaynu ku mitidayna waxaa ka mid ah sadaqa in deeqsinimadeenu korodho oo gacanteennu ay furnaato oo qof waliba wixii uu heli karayo ilaa waktigaa qaaliyahe lala raadsado ciddii u baahnayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya xadiidka ibnu cabbaas waxa uu ahaa buuhi dadkao dhan mid u deeq badan waktiga deeqdiisu sii badan tahayna wuxuu ahaa bisha ramadaan bishaa ramadaan buu weliba sii kordhin jiray marka uu malagu la kulmaya caalamka kore ay uga yimaadaan malaa'igta booqanaya sadaqada bishan la bixinayaana waxay leedahay siyaado ayay leedahay markaa waynu ku dadaalaynaa hadday dhar tahay iyo haddii ay dhuuni tahay dhinac kastaba waxyaabaha sadaqadaa waxaa ka mid a idcaamu dacaam raashinka bisil in la bixiyo oo dadkii soomanaa waxay ku afuraan aanay waayin hadday tahay cunno iyo hadday cabbi tahayba ilaahayna wuu ku ammaanaa qur-aanka dhexdiisa awliyadiisa iyo dadka muuminiinta ah agtooda laguma gaajoodo alla wuxu uhi wayudcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nudcimukum liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina yowma cabuusa qamdariira fawaqaahum allahu shara dalika اlyowmi walaqaahum nadraة wasuruura wajazaahum bima sabaruu janata waxariira suurat linsaan buu ilaahay ku ammaanay awliyadiisa wuxuu waxay siiyaan bixiyaan raashinka ayay siiyaan dadka mid qallalan iyo mid qoyanba masaakiintay siiyaan agoomahay siiyaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan ayay siiyaan gaajo cid kuma cadaabaan waxaanay caddeeyaan mowqifkooda oo dadkan inaanay ammaan ka doonayn laakiin ilaahay ay ajri ka doonayaan subxaana wa tacaala iyo inuu ka raali noqdo ilaahayna wuu yeelo jannu ku abaalmariyey iyo xariirteeda xataa shardi ma aha qofku marka uu bixinayo raashinka inuu la raadsado un dadka baahane waxa uu siin karaa cid walba oo uu arka inay sooman tahay ama uu ka faa'iidaysanayo muslimiinta ka mid a tudcimu طacaama wa tuqri'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif dardaaranku nebiguina siiya waxa weeye cid walba waxbaad siin kartaa raashinka waad salaantiina waad fidinaysaa arrinta sida gaarka aynu uga sii faa'idaysanaynaa waxa weeye tafdiiru saa'imiin dadka sooman inaynu afurino
waxaad ku afurinaysaa ayaanu badnaaninba afurkaaga qayb ka mid aad siiso haddii aad meel ku afuraysa meelo kale aad dadka ku afurin karto halkaad joogtiyo meelaha kaleba waxoogaa lacagood u qorshayso intaad istidaacadaada iyo awooddaadu ay tahay ayaad wax ku iibinaysaa aad ugu talagalaysa wakti walba dadka sooman masaakiintii gaar baad waxu siisay jaarkii gaar baad waxu siisay laakiin kuwa soomanna gaar u sii eego adigu ha isku dayin keliya inaad noqoto ka la afurinayo ama afur bilaasha raadsanaya laakiin waxaad isku daydaa ajri baad doonaysaa sidaa soomka ajriga uga doonayso dadka sooman afurintoodana ajri baad ka dooni nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi man fadara saa'iman kaana lahu midlu ajri gayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay qofka afuriya qof sooman wuxuu leeyahay kaa soomani ajrigu lahaa in la eg haddaad 10 afuriso haddaad ka badiso macnaa adigoo 10 cisho soomay adigoo 20 cisho sooman bay ka dhigantay qofkani soomkiisii ajri buu ka helay adiguna intii leeg baad ka helaysa marka waxaa laga yaabaa adigoo ramadaan sooma inaad 100 maalmood oo kalena soonto oo aad ka heshay dadkan kale ee aad afurisay qofkii soomana ajrigiisiina laga dhimi maayo buu ilaahay wuxuu ilaahay abaalmarin u qorayay qofkaana waxba ka naaqusin maayo ilaahay fadligiisa uu ballaaran yahay subxaana wa tacaala waxaynu ka faa'iidaysanaynaa afraad alijtihaadu fi qiraa'ati alqur'aan qofkii yaqaana qur'aanka kariimka inuu ku dadaalo akhrintiisa oo uu badsado waa bishii qur'aanka ilaahay wuxuu soo dejiyay bishan dhexdeeda marka way isleeyihiin qur'aanka qiyaamka siyaamka soomka iyo sala joogga habeenkii iyo qur'aanku way isleeyihiin waxa lagu camirayaa waa qur'aan sidaa daraaddeed baa asxaabtu ridwaanullaahi calayhim iyagoo nabiga ku dayanaya nabiga qur'aanku sii badin jiray waliba malagu la akhri jiray malaku jibriil uu la subcin jiray marka asxaabtuna qur'aanka way kordhin jireen akhrintiisa Uthman ibn Affan waxa la tilmaamaa qur'aanku aad ugu sahlanaa inuu 24 saacadood mar dhamayn jiray dib kuma laha qofku waxa laga yaabaa inuu 8 saacadood 7 saacadood ku dhameeyaba soddonka qur'aanka markuu mutqin yahay xaadib si fiican u yaqaano ibn Rajab al-Hanbali imaamkaasi waxa uu leeyahay marka la yidhi qur'aanka 3 cisho wax ka yar yaan lagu akhriin waa in joogto laga dhigo weey laakiin meelaha fadliga badan iyo ayaamaha fadliga badan qirada inaad kordhisaa wax dhiba ma laha oo daliilka isdiidi maayaa buu leeyahay waxa shanaad oo aynu waqtigeena qiimaha badan ku qaadanayna aljuluusu fil masjid hatta tadlu'a ash-shams salaada subax markaynu tukano inaynaan firdhanin laakiin aynu masjidka sii fadhino ilaa inta qorraxdu ka soo baxayso wax badan oo ma dhaxeeyaan marka la aadaamo salaada subax ilaa markay qorraxdu soo baxayso waxa u dhaxeeya saacad iyo 10 mir haddii la aadaabay oo salaadii subax la sugay 20 daqiiqo way ka sii go'een 20 daqiiqana sunnihii iyo salaadii ayaa lagu jiray waxa laga yaabaa inay ku hadhan tahayba wax 20 daqiiqo meelahaas marka ilaa inta qorraxdu dhulka ka soo go'aysa inaad sugto oo aad fadhido musasaacahaas nabigaana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam fadliga laga helayo oo isaguna uu sameyn jiray oo wuxuu fadhiyi jiray ilaa inta qorraxdu soo baxaysay si wanaagsan dhulka uga soo go'ayso masaajidku joogi jiray wardii jiray waana inoo bushaareeyo waxa uu man salla al-fajr fi jamaa'a qofka salaada subax jamac ku tukada haday rabadaantii haday bilaha kale tahayba thumma qa'ada yadhkuru allaha hatta tadlu'a ash-shams isagoo fadhiyaya oo masjidkiisii fadhiyaya ilaa inta qorraxdu soo baxayso thumma yusalli rak'atayn kadibna 2 ragcadood buu tukanaya wa salaatu duhadi oo waqtigeedii gaadhay kaanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamma wuxuu helayaa ajrigu ka heli lahaa xaj iyo umro dhameystiran riwaayana waa markaas waxaynu halkaa ka fahmaynaa runtii taama wuxuu nabigu celcelinaya calayhi salaatu wasalaam inaanay nuqsaan lahayn oo la saloogi karaynin fadligaa ilaahay u dhammaystirayo waa waqti kooban oo halkaad had iyo jeer aynu hurdadaynu ku cararnaa nafta wax kasta oo culays ah oo ay diidayso ajrigeeda ayaa ku jira daad aragta waxay naftu ka soo taagantahay waa lagu rabeeyaa oo waa la qabadsiiyaa si ay u ogolaato ajrigii u hesho waa arrin aynu odhan karno dadka intooda badan way ku adkaataa qofku markuu suxuurto ee uu cuslaado salaadii buu dirqi ku tukaday kadibna wuxuu doonaya inuu hore u seexdo
bal intaa iska sug si aad u hesho xajkan iyo cumradan uu nebigu ku bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam. waxa lixaad oo aynu ku camiraynaa waqtigeenna ramadaan ictikaafka bishii oo dhan aad ictikaafaysa maalintii iyo habeenkiiba masaajidada. alla wuxuu yihi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid. dumarka waxba ha ka dayin oo hala ciyaarina idinkoo masaajidada ictikaafsanoo fadhiya. markaa masaajid buu ilaahay sheegay, waa masjid walba oo jamaca lagu tukanayo ramadaan iyo qeyrkeedba. nabiguna calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan ictikaafkaasuu badin jiray. 10 cishuu fadhihi jiray oo 10ka u dambeeya ah. sanadkii uu dhintayna waa u kordhiyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam. markaa qofka haddii duruuftu u saamaxayso iyadana inuu ictikaafka la yimaadaana wax wanaagsan weeye. qofka sidoo kale dhaqaala haysta haddii ay u saamaxayso duruufta iyo xaaladiisu, waxa 7 sunno ah oo bisha ramadaan lagu camiraya inuu cumraysto oo iswaafajiyo cibaadada cumrada iyo siyaamka. alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahuma. labada cumro inta ka dhaxaysana ilaahay dembigu ku dhaafa, ramadaantiina wuu ku dhaafay, salaadihiina wuu kaaga dhaafay. isku wada darooyana waa la isku biirinaya. si gaar uu nebigu u dhiiriyay calayhi salaatu wasalaam cumrada ramadaan. ruux dumar oo la odhan jiray Ummu Sinaan oo dumarkii reer Ansaareed ka mid ah ayaa rasuulka u timi sala allahu calayhi wasalam sanadii 10aad markii uu xajka ka soo noqday. markaa wuxuu yihi maxaad u xaji weydeed noo raaci weyday? waxay tihi 2 neef un baanu lahaynoo neefna beertaa lagu sii waraabinayay, neefna odaygaygii baa ku xajiyey oo ku raacay, gaadiid baanan haysanin. tanuu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam taladaasoo keligeedaan ku gooni ahayn, laakiin ummadda islaamka oo dhan u taallo waxau ihi faidaa jaaa ramadaanu factamiri. bisha ramadaan eegoo marka ay timaado cumrayso. fa ina cumratan fiihi tacdilu xaja wa fii riwaayatin xajatan maci. cumrada ramadaan uu qofku soo gudanaya xaj bay u dhigantaa, ama xaj nebi maxamed lala socday calayhi salaatu wasalaam. markaa inahaas 7daas arrimoodoo waaweyn haddaynu isu geyno oo aynu garanno shaqooyinkeenna u muhiimsana bishan aynu ku camirayna inay tahay wax weyn baynu insha allahu tacaala horu marin doonaa. wax weyn oo aynu la rooreynayna waynu iska reebi doonaa dunuubtiya. qofkuna shaqadiisii adduunyada iyo hawlihiisii wuu iska wadanayaa, diintiisi iyo dunyadiisaba si uu isu waafajiyo. wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk. aayaadkaasi waxay sheegayaan qofku adduunyadiisi iyo aakhiraba inuu kororsado oo uu iswaafajiyo oo aanu u ciirin xagga adduunyada qura. markaa talooyinkaas iyo tilmaamaha sharcigeenu ina siiyey markaynu la nimaadno calafkeenna badanaya oo cimrigeenna dheeraanaya oo waqtigeena aynu ka faa'iidaysanaynaa oo waxaynu qabanay qiyaamaha waynu ku farxaynaa. allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaabah. اللهم ارزقنا توبة صالحة. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء،